waxaan aad ii cajab geliyey xaqiiqdii oo aan rabaa inaan u mahad celiyo barnaamijkan doorasho kaab ee saaxiibkeen cabdikhadar iyo tiimkiisu ay noo soo bandhigeen xaqiiqdii aad iyo aad baan u bogaadinayay waxuu haddeer intaan meesha joognay dhallinyarada iyo annagaba na baray doorashadii aynu qabanay oo Puntland saddex arrimood oo ay kaga duwan tahay Soomaaliland oo doorashooyinkeena ka horeysay oo muddo soo qabanaysay dowladda federaalka oo haddeer tiri doorashaan qabanayna tan marka dowladda federaalka halka iga dhig iyada laakiin waxa la yaaba oo cajiib ah saddex arrimood oo ay kaga wanaagsanayn inay soo bandhigeen halkan oo hadda halka ka xusay koow waa shuruucda iyo xeerarka sida doorasho waa shuruuc iyo xeerar waay 16 xeer iyo habraaciyo maamul oo doorashada lagu hagayay oo markii ugu horeysay oo doorasho qabano doorasho gallo dadka reer Puntland arrin cajiib ah way arrinta kale oo iyadana cajiib ka ahayd oo halkan layna ku baray oo xitaa anaga aan ku baraarugnay ilaa moogtay comparison marka heshaad wax ku kala baxayaan oo anigu aan nood garay hoosta ka xariiqay waa ka qaybgalka oo inaga aad inoogu cusbaa xogaa nin baa markaan idhi boosaaso waa xagaa xil xun baa lagu beegay yaa nin igu gadaal ba xogaa laga qoslay waa sax weeye doorashada Soomaaliya taariikhdeedu waxay soo bilaabatay 1954 Soomaaliya doorashada ugu horeysay ee golayaasha deegaanka xilligaas la qabtay xeerkii waaga lagu asaasay doorashooyinka oo waa taariikhdeeni waxa la rabaa inaad taariikhda akhridaan dhalinyaradu oo baaraan wax ka bartaan taariikhdaas siyaasadeed oo inuu soo maray xeerkaas waxa la oran jiray ordinance number 6 1931 March 31 1965 baa kan dambe la ansixiyay laakiin 1934 waa la ansixiyay 33 1953 baa la ansixiyay sanad kadibna doorasho lagu galay marka maxaan uga dalnayahay astaanta Soomaaliya waxa la isla qaatay doorashooyinka Soomaaliya 1 March inay dhacaan waxaan doorashooyinka ilaa dowladda reedka ahayd tii dambe doorasho ma jirin waxa la qabanayay 1 March waa intaas oo cimilooyinkii iyo meelihii iskuuladiina aan wali la xirin magaalooyinkii xeebaha ah oo kululaan laga tagin roobna uusan diin uusan cilad u noqon roob guga oo aad u bilowday oo keeni kara dadka deegaanada qaarkood inay matalaaddoodii waayaan waxa marka waxa loo sameeyay matalaadda inaan la waayin